madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu maanta ka qayb galay xaflad ballaaran oo xariga looga jarayo goob tartanka dabaasha oo laga hirgeliyay wadankani jamhuuriyadda Jabuuti. Goobtani ayaa waxa ay tahay goob tababar oo ay dhalinyarada dalkani ku baranayaan heerka tartanka dabaasha iyo sidoo kale goob caalami ah oo wadamada Geeska Afrika ay kaga qayb qaadan doonaan tartanka ciyaaraha dabaasha. goobtan ayaa waxaa maalgeliyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee dalkani Jabuuti waxaana qayb ka noqonaysaa xagan competition yeemanaya. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu sheegay in goobtan ay noqon doonto mid qayb ka noqoto horumarka kala duwan ee dhinacyada sportska ee dalkani Jabuuti. wayna arkayda inta dadaalka weyn qoladani Jeunesse Sport ay samaysay aad baan bogaadinaynaa aad baan u istiraacayna carruurtii oo gabdho iyo wiilalba yani sidii caalamka lagu yaqaanay yani tartanada u gali doona insha Allah ta'ala.